Waa maxay sababta ay India u diiday in ay ku biirto ESCO cambaareynta weerarada Israa'iil iyo Iiraan u dhexeeya? India ayaa iska fogeysay cambaareynta Ururka Iskaashiga ee Shanghai ee loo soo gaabiyo ESCO oo ku aadan weerarada joogtada ah ee Israa'iil ku hayso Iiraan, taasoo muujinaysa khilaaf ka iman kara isbahaysiga siyaasadeed ee Eurasia ee saameynta ku leh khilaafka. Hogaamiyaasha dunidu waxay si isdaba joog ah ugu baaqeen in xiisadda la dejiyo iyada oo ay jirto weerarada aan horey loo arag ee Iiraan ku qaaday ama Israa'iil ay ku qaaday dalka ay isku gobolka yihiin Iiraan, kaasi oo khatar gelinaya xasilloonida gobolka. Jimcihii la soo dhaafay, wareeggii u dambeeyay ee dagaalka ayaa bilowday kadib markii Israa'iil weerar ay ku qaaday xarumaha militariga Iiraan iyo xarumaha nukliyeerka ee Iiraan. Tani waxay daba socotaa laba wareeg oo dagaal militari oo toos ah oo u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil, kaasi oo ka dhashay duqeymo Israa'iil ku qaaday bartilmaameedyo Iiraan iyo argoosi xigtay oo Iiraan ku samaysay Israa'iil. Mas'uuliyiinta Iiraan ayaa shaaciyay in weerarada Israa'iil tan iyo Jimcihii ay la beegsadeen goobo la degan yahay iyo kuwo militari oo ku yaalo Tehraan, sidoo kale magaalooyin badan oo dalka ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah iyo dhowr saynisyahano ah oo u dhashay Iiraan iyo macallimiin jaamacadeed ayaa lala dilay. Dhowr taliyayaal sarsare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida Iiraan iyo ilaalada kacaanka Islaamiga ee loo soo gaabiyo RCJ. Weerarada Israa'iil ayaa Sabtidii waxa ay ku dhaceen warshadaha sifaynta, xarumaha korontada iyo kaydka saliidda Iiraan. Tehraan ayaa ka argudatay boqolaal gantaal iyo diyaarado aan duuliye lahaynna ku garaacday magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa ee Iiraan ama Israa'iil, waxaana ku dhintay ugu yaraan 13 qof, tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen. Dhanka kale, Tehraan ayaa sidoo kale hakisay wadaxaajoodidii nukliyeerka ay la lahayd Mareykanka. Haddaba, maxay India u diiday in ay ka qayb gasho doodaha ama ay taageerto mowqifka ESCO ee weerarada Israa'iil? India ma taageertaa Israa'iil, maxaase looga dan leeyahay dalalkani? ESCO oo ah urur siyaasadeed iyo amni oo la aasaasay 2001, waxaa ka mid ah China, Belarus, India, Iiraan, Kazakhstan, Bakistan, Ruusiya iyo Tajikistan iyo Uzbekistan. Iiraan waa soo-galootigii u dambeeyay isagoo ku biiray ESCO ee hoos yimaada guddoomiyaha India 2023. Sabtidii, ESCO oo ah urur siyaasadeed oo guddoomiye uu ka yahay dalka China ka ah ay muujinayaan welwelka weyn ee ku aadan xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Iiraan, waxayna si adag u cambaareynayaan weerarada militari ee Israa'iil ku hayso dhulka Iiraan. Bayaanka ESCO ayaa sidoo kale lagu xusay in Israa'iil falalka gardarrada ah ee ka dhanka ah bartilmaameedyada rayidka ah ee ay ku jiraan kaabayaasha tamarta iyo gaadiidka, taasoo keentay in ay waxyeello rayid ah. Waa xadgudub weyn oo sharciga caalamiga ah iyo axdigii qaramada midoobay, ayuu yiri. Weerarada Israa'iil waxay ka dhigan yihiin xadgudub ku adag ama ka madax bannaan Iiraan, waxay waxyeello u geysteen ammaanka gobolka iyo kan caalamiga ah, waxayna khatar weyn ku yihiin nabadda iyo xasilloonida caalamka, ayuu hadalkiisa raaciyay, isagoo tacsi u diray dowladda Iiraan iyo shacabkeedaba.